السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان قيارته سودو هذا ومر كله برنامج كله مانك وجمعه واللي حلواتن كديسمبر لبدا كون يشان لباتنك برنامج كنا maanta insha Allah taala waxa uu ka koobnaan doonaa dhowr qodob oo ku saabsan arrimaha soo galootiga iyo immigrationka. Arrimahan ayaa waxaan ku eegi doonaa insha Allah taala dadka soo galootiga ah ee cusub waxa ay ka damacsan yihiin maamulka Donald Trump. Sidoo kale waxaan eegi doonaa dadka iyagu waayay sharciyadii dalkan Mareykanka ay ku joogeen iyo warqadihii shaqada. Waxa kale oo eegi doonaa dadka already ama horaanba u qaatay dhalashada ee citizenship ka haysta waxa ay ka damacsan yihiin iyo waxa maxkamadaha ay ka yiraahdeen iyo khubarada xagga immigrationka. Haddii aad nagu cusubtahay subscribe to the channel hadda hore noola joogtay like and share the video waan ka mahadcelinaya. Sidoo kale facebookeena follow da dhac ku sii insha Allah. Aan ku bilaabay waxa dardar gelin xoog leh ku socda barnaamijka madaxweyne Trump iyo xertiisa ay ku wadaan rabaan inay sharciga kaga noqdaan dad fara badan oo soo galooti ah gaar ahaan dadkii soo galay xilligii Joe Biden. Marka waxa ilaa iyo hadeer systemkii dalka ay ku joogeen ee warqadii shaqada ee work permit-ka iyo programkii ka difaacayay in dalka laga tarxiilo inta dalkoodii uu xal looga helayo oo nabad ay ka dhacayso waxa waayay sharciyadaas 1.6 milyan oo qof ama 1,600,000 oo kun oo qof ayaa waxa ay waayeen legal statuskii dalkan Mareykanka ay ku joogeen. Numberkaas ayaa number culus ah waxaana u badan yahay numberkaas 600 oo kun oo Venezuelan ah ayaa waxa ay waayeen TPS programkii. Marka waxaan eegi doonaa insha Allah taala markii qofka laga qaato sharciga waxa ay ku andacoonayaan qolyahan ninka hadda xukuma oo kale immigrationka wuxuu ku doodayaa haddii sharciyadii ku shaqaysanaysay aad weysay dadka taxpayer-ka ah oo cashuurta bixiya dalka Mareykanka ma aha in adiga ay biil ku siiyaan oo guri iyo meel aad degto ay ku siiyaan sababtoo ma shaqaysatid wax lacaga oo ku soo galana mala ayuu ku doodaya. Marka taas ayaa waxay fududeynaysaa buu leeyahay dadka haddii lagala noqdo TPS programka in horay laga tarxiilo. Arrinkan ayay ku doodayaan iyaga laakiin waana sababta ay dadka ugala noqdeen viisooyinka dalka ay ku joogeen iyo TPS programyadii oo ahayd temporary protected statuska. Marka ilaa had iyo hadeer dadka waayay sharciyadaas waa 1,600,000 oo kun oo qof. 605,000 waa Venezuela ay ka yimaadeen. Haiti 330,000 oo qof ayaa ka yimi. Wadanka Honduras waxa ka yimi 5,000 Afghanistan 8,000 baa meeshaas ku weysay. Nepal 7,000 baa ku weysay. Cameroon 4,920 qof ayaa waayay sharciyada ay ku joogeen dalka oo TPS ka ahaa. Ethiopia waxa weynaysa baa la yiri 4,540 qof. Wadanka Myanmar waxa weynaysa 3,670. Nicaragua oo kale waxa weynaysa 2,900. South Sudan 210 qof ayaa iyagana sharciyadan weyn doona ama waayaba already oo dalalkooda lagala laabtayba sharciyadii ay ku joogeen dalka oo ka ilaalinaysay in ICE ay tarxiisho oo ka tarxiisho dalka. Marka dadkan waxa ku soo xigi doona oo uu ka dhacaya haddii Ilaahay idmo TPS programka waxa uu ka dhacaya wadamada ay kamid yihiin Soomaaliya oo kale iyo Ukraine iyo wadamadaas. Marka waxa la yiri haddii intuu ka dhaco madaxweynaha uu u cusboonaysiin waayo waxa ay dhici doonta sanadkii laga soo bilaabo sanadkii 1990 ilaa iyo hadeer markii ugu horeysay qof programkan haysta dalka Mareykanka laga weyni lahaa weeye baa la yiri. Waxa intaas dheer oo kale CBP1 programka la dhihi jiray oo dalka inta aadan soo galin appointmentiga ballanta lagu soo sameeysan jiray inta aad darbiga ka soo boodin hadhowna qof immigration officer ah aad kula kulmaysay xuduudda adoo informationkaaga waxaaga la hayo. Kaas ayaa waxa ay u bedeleen oo ay ka dhigeen in qofka uu isku tarxiili karo haddii uu rabo dalka Mareykanka in uu rajo ka qabo inuu mar ku soo laabto. CBP1kii programkii ahaa ama app-kii waxa ay ka dhigeen mid dib ugu laabasho ah self deportation ada istarxiilayo app-ka ka soo apply gareynaysa baa la yiri. Marka waagi dhaweyto markii ay ballan qaadeen waxa ay sameeyeen in ay diyaaradana ku goynayaan hadda dirto adiga $1,000 lacagana ay ku siinayaan. Usbuucii hore waxa soo baxay marka in ay rabaan inay ka dhigaan $3,000 diyaaradana qofka laga bixin doono. Laakiin arrinka isaga ah uma shaqeyn sababtoo ah waxayba ay la yihiin dad fara badan oo hadda isticmaala programka oo dalkii dib ugu laabto oo $1,000 hataa qaato. Dadkan they taking their chances inay dalkan Mareykanka ay iska sii joogaan ay chance ka qaadanayaan xilligaas oo ay damacsan yihiin in madaxweyne Trump markuu tago xaaladan xal loo heli doono.
tan kale oo ay hadda ka shaqaynayeen oo usbuucan soo baxday oo la isku haysto waxa weeye in dadka asylumka sugayo ama dadka sugayo magangelyo doonka oo applicationada ay u xareysan yihiin ayaa waxa ay bilaabeen in ay asylumkii dedejiyaan ma aha inay sharci ku siinayaan waxa ay soo saareen qorshe ah qofka horta muxuu asylum u qaataa ama magangelyo doon uu u qaataa wuxuu u qaataa bay yiraahdeen cabsi uu ka qabo dalkiisii hooyo in lagu dhibaateeyo marka waxaan ka shaqaynaynaa bay yiraahdeen in wadamo kale aan dhiil la soo galno qorshe aan ka soo dhaadhacsiino dadka hadda Afrikaanka oo kale dhiilkan waxaa qaatay wadanka Uganda oo kale marka waxay yiraahdeen dadkii sugayay maxkamadaha marka oo xilliga dheer sugi lahaa dhowr kastana ay qaadan lahayd oo laga yaababa in xilliga Trump uu dhaafo waxa ay soo saareen in wadamo kale la geyn karo Supreme Courtiga ama maxkamadda dalka Mareykanka ugu sareysana warkaas waa ay gaarsiiyeen wayna ka ogolaatay waa dhaweyto problemka haystay wuxuu ahaa inay helaan wadamo qaabilayo dadkaas oo haddii dalkoodii ka cabsanayaan dalkan kale magangelyo doon ahaan in loo geyn karo so Afrikaanka ama East Africa Uganda ayaa dhiilkaas qaadatay programkaas marka waxa ay rabaan in ay ka kansalaan dadka asylumka sugayo oo sharciyada warqadda kumeelgaarka warqadda shaqada haysta iyo oo social security iyo nidaamkii dalkan kaga sii shaqaysan lahaa inta judge uu go'aan ka gaarayo dadkii sugayay oo dhan waxa ay rabaan in ay maaragtay badda ku daraan oo ay isticmaalaan sharci iyaga ay soo saarteen maadaama bay leeyihiin waddankaagii hooyo aan lagugu celinaynin waddan kale oo magangelyo ku siinayo baa lagu geynayaa so dad fara badan ayaa arrinkan isaga natiisa ku joogay TPS programka ka mid ahaa waxaa ka mid ahaa dadka asylumka sugayo programkaas halkaas ayaan kaga gudbi doonaa insha Allah taala haddii aan kan kale u gudbo dadka dhalashada qaatay ee citizenska ah oo already la dhaariyay oo shahaadadoodii haysta oo baasaboorka Mareykanka haysta ayay iyagana u soo jeensadeen dadkan ayaa waxa ay ku sheegeen asbuucii la soo dhaafay in ay ka damacsan yihiin in bishiiba waa bishii 100 ilaa 200 oo qof sharciyada in lagala laabto oo case-kooda review lagu sameeyo oo dib u eegis lagu sameeyo maxkamadaha iyo dadka u dooda arrimaha soo galootiga ee advocacy groupska ah iyo sidoo kale hay'ado waaweyn ayaa aad iyo aad uga hadlay arrinkan isaga ah waxa kale oo ay hay'adahan ka qayb qaadanayaan in ay loo suudiyo ama maxkamada ay la aadaan go'aanka loogala laabtay TPS programka wadamadaas hadda faraha badan oo haday aan soo tirinay marka arrinkan dood ay kaga jiraan waxa kale oo ay sheegeen oo ay cadeeyeen 1990kii ilaa 2020kii 25 hadda aan ku jirro oo madaxweyne Trump uu noqday sanadkii dhan 10 qof oo kale baa waxa shaki gali jiray dhalashada ay qaateen sida ay ku qaateen iyo in lagala laabto iyo in dib u eegis lagu sameeyo faylalkooda ayaa dhici jirtay marka in ay ka soo guuraan 10 qof sanadkii maybe ama labadii sanaba oo ay u soo guuraan 100 ilaa 200 oo qof in caseskooda dib loo eego in sida ay ku qaateen ma been bay sheegeen ma waxba iska daba marsana ma arrimo oo waxa ay ku daba jiraan dadka ay sida sheegeen ay ka shakisan yihiin in ay si qalad ah wax ku qaateen bay yiraahdeen laakiin waxa meeshan dhici doonta xarun weyn oo ay fureen oo ay ugu talagaleen in dib u eegis loogu sameeyo application kasto oo green card ah iyo application kasto oo citizen ah oo dadka gaarka ah waliba 19 wadan bay si gaar ah isha ugu hayaan Soomaaliya waa kamid waana sababta arrinkan aan u soo qaatay waxa kale oo ugu dambeyn qodobka aan ku soo koobayo waxa waaye programkii ahaa loo tariga green cardka totally waa la kansalay programkaas Trump uu kansalay maadaama ninkii dadka ku dilay jaamacadda Brown University oo professorkana ku dilay jaamacadda MIT uu ku soo galay dalkan programkan diversity visa la yiraahdo bakhtiyaar nasiibka ahaa ee loo tariga waa programkaas isagana uu kansalay waa la joojiyay marka programkaas wuxuu raacayaa programkii qaxootiga refugeeska oo uu kansalay executive order ka soo saaray programkan TPS ka hadda wadamada uu kala laabanayo faraha badan
already 10 buu kala laabtay 3-4 kalena waa u dhiman tahay Soomaaliya ay ka mid tahay marka uu ka dhaco January inaan loo cusboonaysiinin programkaasna wuxuu raacayaa CBB 1kii aan ka soo sheekaynay oo aabka ahaa oo isna laga dhigay mid isku tarxiilo kanna hadda diversity visa oo programkii lotteryga isagana totally wuu kansalay marka 2026 2025 dadkii imaan lahaa 2025 2026 dadkii imaan lahaa bul Allah siiyo ay baa cunay sheekadoodii saas ayuu ka dhigay madaxweyne Trump marka insha Allah taala wax kasta oo ka soo kordha arrimaha immigrationka iyo howlaha Mareykanka iyo siyaasadiisaba waa idin kula wadaagi doonaa channelka haddii aad nagu cusub tahay don't forget to subscribe haddaad horena ula joogtayna like and share ta hanagala baqaylan insha Allah wasalaamu calaykum ورحمة الله وبركاته.